waxaan wanaagsan asxaabteena waa mar kale barnaamijkeeni Excelka waa mar kale ayaan caawa idinku soo noqday markaas caawa waxaan idin tusayay qaab sahlan oo wadamada markaad macluumaadkooga aad raadinaysaan aad u heli kartaan imka tusaale waxaan tusaale soo qaatay wadamadan ayaan tusaale soo qaatay tusaale Ethiopia Kenya Soomaaliya United States United Kingdom Uganda Bahrain Sudan iyo Djibouti ayaan tusaale soo qaatay markaas hadduu qofku weydiiyo wadamadan lacagta ay isticmaalaan maxay tahay hadduu ku yidhaahdan marka tusaale si aad u ogaato halkan ayaad imanaysaa marka koobaad horta kuwan aad wada dooranaysaa halkaas data ay ku qoran tahay baad imanaysaa data markaad imaatid kadib halkaa geography ay ku qoran tahay aad imanaysaa click markaad dhahdan kadib in yar wax yar baad sugaysaan cabaar saas isku bedelaysaa marka sidaa isku bedesho kadib calaamada yar halkaa kasoo baxaysa ayaad click leedihiin lacagtooda inaad ogaataan baa u baahan tihiin kadib waxaad leedihiin currency ayaad ka dhex raadinaysaan halkan currency ayaad halkan ka dhex raadinaysaan currency codekaas ka dhex raadinaysaan waa taa ET bir Ethiopia bir Kenya shilling Somali shilling US dollar Great Britain pound Uganda shilling baan u malaynayaa Bahrain dirham Sudan Guinea baa la yidhahdaa iyagana iyo Djibouti faran saas ayaad ku kala garanaysaa wadamadu waxay isticmaalaan saasaad ku kala garan karaysaa marka tusaale waxaad halkaa ka dhex helayn malaha tusaale iminka halkaas haddaan doonayno calamadooda wadamadan inaan helno haddaan doonayno wadankan click leenahay noo soo baxay calaamadii red baa noo soo baxaysa markay calaamadan noo soo baxday kadib calaamadan ku dul dhufanaynaa hoos ayaanu soo degaynaa image halkaas ay ku qoran tahay aan click leenahay calanka ugu horeeya kuu soo saaraya kadib hoos geeskaas baa imaanaysaa marka calaamadu isku tallaab isku bedeshaad hoos sidaa ugu soo jiidaysaa wadan kasta calankiisa iyo kuu soo saaraya marka tusaale maxaa la dhaha Ethiopia Kenya Soomaaliya US UK Uganda Bahrain Sudan iyo Djibouti calaamadooda mid walba waa halkaas haddaad doonaysid sidoo kale inaad populationkooga ama dadka bulshada ku nool inaad ogaatid haddaad u baahan tahay halkan ayaad imanaysaa populationka qoran tahay kadib halkaasaad dib ugu noqon click ayaad leedahay halkaa yar baad click leedahay calaamada noo soo baxayso population baad raadinaysaa population waa ka halkaa ku qoran click ayaan leenahay ka koobaad buu noo shaqeynayaa markaas hoos ayaan sidii oo kale ugu soo jiidanay ilaa halkaasaan imanaynaa tusaale 112 milyan Ethiopia 27,730 qof ayaa ku nool buu leeyahay Kenya 52 milyan 573,973 Soomaaliya 15,442,905 qof maxaa la United States 328 milyan 239,523 sidoo kale UK 66 milyan inay yihiin buu sheegayaa Uganda 44 Bahrain 1 milyan iyo badh Sudan 42 milyan Djibouti 973 kun iyo 560 qof inay yihiin buu halkaa ku sheegay haddaa madaxdooda inaad ogaatid doonaysid halkan aad imanaysaa iyadana sidoo kale halkii click leedahay halkaasaad ku dhufan calaamadaa kuusoo bixi leaders baad raadinaysaa leaderskooga haddaad doonaysid inaad ogaatid madaxda meesha ka talisa haddaad doonaysid click yaad leedahay iminka koobaad buu noo shaqeeyay ka koobaad madaxweynaha Ethiopia Sahle-Work Zewde weeyaan prime ministerka ama ra-iisul wasaaruhu waa Abiy Ahmed Damaqa Mokonnen waa ra-iisul wasaare ku-xigeenka haddaad doonaysid inaad ka labaad aad ku dhufatid Kenya oo kale inaad ku dhufatid aad doonaysid click yaad Kenya leedahay halkaasaad imanaysaa leaderkaad haddana dooranaysaa wuxuu kuu soo saarayaa caasimada ayuu noo doortay halkaasaan imanaynaa calaamadan dooranna leader ayaan leenahay Uhuru Kenyatta inuu madaxweyne yahay William Ruto inuu madaxweyne ku-xigeen yahay ayuu halkaas nagu tusinayaa sidoo kale Soomaaliya haddaan tijaabino Soomaaliyan click leenahay halkaasaan leenahay wuxuu noo soo saaray madaxweyne Farmaajo waa inkaray ra-iisul wasaare buu soo saaray Maxamed Xuseen Roble ayuu soo saaray halkaas ayuu soo saaray inkiraad buu indhaha ugu dhuftay ii sheeg inkiraad buu indhaha ugu dhuftay Farmaajo halkaas wuxuu soo saaray Maxamed magaalooyinka ugu weyn laftooda haddaad doonaysid in magaalooyinka ugu waaweyn aad ogaatid iminka largest city haddaad doonaysid inaad iyadana ogaatid halkan aad imanaysaa halka ugu horeysaad imanaysaa Ethiopia tusaale click leedahay calaamadii baa tegi magaalada ugu weyn si uu kuugu shaqeeyo halkaasaad leedahay Addis Ababa waa ka halkaas soo saaray Addis Ababa markuu soo saaro near waaweynee si uu iigu muuqato hoos ayaad usoo jiidaysaan saasuu iigu soo saarayaa
Addis Ababa, Nairobi, Hargeysa, Sugar, waxaa soo maxaa la Great Township, London, Buganda buu leeyahay. Ma ogi inay sax ku tahay saas, laakiin large city saasaa isagana looga shaqeeya. Iminka GTB-googa kale isma dhibaysa GTB-googa mid walba inaad ogaato haddaad doonaysid, isla halkii baa tagay GDP-googa halkaasaad imanaysaa. Waddan kasta wax soo saarka sanadlaha uu soo saaro, halkaasaad imanaysaa, hoos baad usoo jiidaysa. Ethiopia iminka 96 bilyan ayuu leeyahay. Kenya 95 bilyan. Soomaaliya 4 bilyan buu sheegayaa. USA wuxuu sheegayaa 22 trilyan 940 bilyan ayuu sheegayaa. UK 2 trilyan iyo 828 bilyan ayuu sheegayaa. Uganda 34 bilyan buu sheegayaa. Markaas Bahrain sidoo kale 38 bilyan. Sudan 18 bilyan. Djibouti 3 bilyan buu sheegayaa. Markaas labadan macawisleyda aad bay iskugu dhow yihiin. 3 bilyan iyo 4 bilyan bay ka dhigan tahay. GTB-googa aad buu daciif yahay. wax walba halkaasaad ku ogaan karaysaan. Waxaan rajaynayaa inaad aad u fahamteen. Markaas sida barnaamijka qaybihiisa kale aad ula socotaan, fadlan follow soo dhaha. YouTube-ka baayoga saarana gal oo subscribe dhaha, halkaas kala socda barnaamijyada dhaadheer aan soo gelin doono. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin.